Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta furay kulan looga hadlayay dardargelinta mashruuca kaydka biyaha ee Jowhar oo in muddo ah lagu howlanaa hirgelintiisa. Shirkan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta dowladda, bahwadaagta horumarineed, hay-adaha qaramada midoobay iyo wakiilo ka socday bulshada rayidka ah. Waxaana diiradda lagu saaray dib u eegista horumarinta mashruucan, xalinta caqabadaha fulinta iyo xoojinta taageerada farsamo, dhaqaale iyo siyaasadeed ee wajiga xiga mashruucan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid qaran oo tiir dhexaad u ah qorshaha isbeddelka qaranka ee 2025 ilaa 2029 kaas oo kor u qaadi doona maareynta biyaha iyo horumarinta beeraha. waxaan rabaa marka u horeysa in halkan aanu ka bayaamino in xukuumaddan dan qaran iyo dowlad goboleedka Hirshabeellaba uu barnaamijkan JOSP la yiraahdo ee biyo xidheenka marinka biyaha ee webiga saabuun ka bilaabmaya 25 kilomitir soconaya ee biyaha lagu kaydinayo ee lagu dhitaynayo Xawaadley ka bacdina lagu celinayo webiga inuu yahay mid udub dhaxaad u ah qorshaha horumarinta dalka. waxaanu qoraynaa barnaamijkaasi in halbeegiisu yahay inuu u adeego 1.6 milyan muwaadiniinta Soomaaliyeed markay noqoto xagga maareynta fatahaadaha, markay noqoto xagga abaaraha, markay noqoto xagga irrigationka iyo waraabka beeraha waaweyn iyo kuwa yaryarba, markay noqoto ilaalinta badqabka bi'ada iyo duruufaha nololeed ee dadku ay ku sugan yihiin, iyo khaasatan markay noqoto wax soo saarkii iyo quudkii ay soo saarayeen nafahoodana ay ku quudinayeen iyo qoysaskooda ummadda Soomaaliyeed ay ku quudinayeen beeraleyda danyarta ah ee ku dhaqan agagaarka webigu u maro. dabcan shabeellooyinku waa the bread basket meesha rajada weyn horena u lahaan jirtay haddana laga qabo in cunto yarida iyo duruufaha dalkeena ku habsaday ay inaga samata bixiso. dabcan de webigii Juba iyo beerahaasina waa jiraan laakiin kuwan ayaa ah nidaamkii aad loo dejiyay marka dib u eegto 1920 muddo 100 sano ka hor laga joogo ayaa meeshaas la arkay inay tahay meel aaya badan u leh xagga wax soo saarka. Mashruuca kaydka biyaha ee Jowhar ee loo soo gaabiyo JOSP ayaa horseedi doona haddii uu hirgalo in ay ka faa'iideystaan in ka badan 300,000 oo muwaadiniin Soomaaliyeed.